tawakal gaadiidka waaweyn ee xamuulka ee isku xidha Jabuuti iyo Somaliland halka waxaanu baaq uga direynaa dhammaan ummadda reer Somaliland qurba joog qolqol joog xukuumad dhammaantood taasoo aanu ka codsanayno dariiqa aanu ka shaqaynayno ee dhibta badan nagu haya inay naga caawiyaan oo naga garab istaagaan annaga oo waxaanu ku shaqaynaynaa uu yahay waxaa yare aanu ka ururino gaadiidka aanu ka qaadno calaatirib $35 gaariga weynka yara $25 taasoo shaqaalaha wixii ka soo hadha aanu waddooyinkaa ku kabkabno muddo 9 sannadoodana aanu sidaa ku soo wadnay cid naga garab istaagto oo wax noo qabata aanan hore warag markaa ummadda Somaliland dhammaantood waxaanu ka codsanaynaa inay dariiqa nagu garab istaagaan waxa la yaala wixii taakule ee ayna siinayaanna ay noogu soo shubaan ankoodka iskaashatada haddii alla baydimkeeda leeyahay waxa weeyaan wax qalaba waxaanu leenahay cagaftaa sheewasheed arkaysaan waxaanu ururin inaynu ka iibsanay iska rogadaa noo shaqaynaysa ilaahay jisaaha ka siiyee shirkadda sirta leeraaba naga caawisay shidaalka ayuunbaanu ku shubannaa wax lacag kama bixinno dee dhammaan ummadda reer Somaliland tijaar iyo ganacsata iyo maxaanku idhahdaayey dowladba waxaanu ka codsanaynaa dee inay iskaaga garab taagaan dalkoodii ayaanu ka shaqaynaynaa waa shaqo qaran baanu haynaa inay iskaaga garab taagan baanu ka codsanaynaa iyagoo mahadsan xukuumadda iyadu way cusub tahay si gaaraanu iyagoo wada hadli heer wasiir heer madaxweyne iyaga hoos baanu wax iskugu sheegay wixii iyaguna insha allahu karaankooda ah inay nagala qayb qaataan iyaga annaga ka wada hadli doono sida walaalkii sheegay gudoomiye Ibrahim waxaan ka shaqaynaynaa waa dariiqa isku xidha Djibouti iyo Somaliland dariiqan maanta aan wadna gaar ahaan waa dariiqa ka baxa Boorame ilaa iyo Lowyacad isku xidhaya marka waxaan doonaynaa inaan gaarsiino fardaha haddii ay beedmo muxsiniinta dhammaan waan u baahannahay wixii af Soomaali ku hadla koobi mayno dal iyo dibadba jooga waan u baahannahay dariiqaasina aad buu noogu taagan yahay waana waxaan u malaynayaa mashruuca keliya ee dadku madaxa ku wada hayaan inta badan marka annaga u guntanay oo iskaashatadii tawakala ayaa u guntanay dadkana waxaan doonaynaa inay nagala soo qayb galaan dariiqaasi waad ogtihiin wuxuu nagu hayaa dhibaato aad u badan hadday maal iyo noqoto iyo birba birahayagii waxay ku socdaan nafbax bay ku socdaan xoolihii ummaddan u soo qaadanay laftoodu habsan baa ku yimaada iyo dayac waxa keenayna waa dariiq xumo marka waxaan rajaynaynaa haddii la yidhaahdo dariiqaasi haddii uu hagaago in waxaasoo caqabada laga gudbi doono haddii la yidhaahdo marka waxaan rajaynaynaa wixii karaankooga ah ciddii muxsiniina xukuumadda barasaabka gobolka iyo wixii la socda marka waxaan doonaynaa inay gacan weyn ka geystaan haddii la yidhaahdo waxaa kaloo baan ku diraynaa maayirada khaasatan maayirka degmada Boorame Hargeysa Gabiley inta ay khusayso waddadaas oo dhan waddadu ciidamo leh waddadu waa waddo ilaahay ciidamo leh ninkii maruun baa leh marka waxaan rajaynaynaa waddadaasi haddii la yidhaahdo inaad gacan ka geysataan wixii karaankiina inaad noogu soo shubtaan account halka ku qoran waxaanu leenahay gaadiidka waaweyn ee tawakal haddaanu nahay annagu waanu fatallay un meeshan cagaftaa yaroo keliya aanu leenahay cagaftaasina waxay qaban kartaa waa gacan keliya isku rogadaa shirkadaas noogu deeqday mooyaane ninkii gaadiid ku deeqaya iyo ninkii shidaal ku deeqayaba annagu dadweynaha reer Somaliland waanu u bilownay laakiin dhammaystirka Somaliland baa laga sugayaa hadday tahay muwaadiniinta muxsiniinta ah iyo hadday dowladda tahayba annagu waanu u bilownay tafadal ayaanu leenahay cidna lagama laha waddada dadweynaha ayaa wada leh annagu waxaanu isla garanay haddaanu guddida iskaashatada tawakal inaannu intii karaanka ayaga horta u bilowno waa bilow shaqadu qoljeed meema ka maraysaa ilaa Boorame inay ilaa fardaha sii gaadhaan waanu ku wadnaa insha Allah ta kale cala xadhna waa sidaas leeg waanu soo sameynaa waxaanu ka qabanaa waxna waa harsan tan noogu sii daran waxa weeyaan ta toqoshi ilaa sayla iyadana qorshahay noogu jirta waa meesha baabuurta naga marisay waa meesha badda ay ku dhex dhacaan baabuurtu waxaanu gaar u leenahay maaha wax Somaliland gobol kastaba ku seeya waa dhuuntii Djibouti ay wax nooga iibinayeen laga soo wada qayb galaan leenahay marka hore ilaahay baan mahadnaqaynaa marka labaadna tawakal baa loo mahadnaqayaa anigu waxaan ahay Ismaaciil Daahir Raage
waxaan ilaaliyaa xadhigga in foogee kaybilku dhalay ayaan ka ilaaliyaa cagaftaa tawakal cagaftaana maxamedow siciid geeddi baa ku soo caawiyey noolkeegii oo $5,000 ka soo bixiyo horumarka dalka iyo iskaashatadaba iska jecel oo isgarab taagaya maxamedow siciid geeddi wuu mahadsan yahay sidaa waa inaa laysku wada garab taago wixii dalka iyo dadkaba wax u taraya inaa laysgarab taago ayaan ugu baaqayaa dal iyo dibadba kolkaa laysgarab taagaan leeyahay tawakal way dadaalaysaa ummaddeenna waxaan u sheegaynaa dal iyo dibadba inaa tawakal la caawiyo oo laysgarab taago ciddii martay unbaa waddadan garanaysa waa ayaan daran halkii shaadira ku sheegayay waddadan waa ayaan daran laakiin muhiimaddu waxa weeyaan maanta mar haddii la bilaabo iskaashikada tawakal ay bilowday yar iyo weyn sidaan isku raaci lahayn waxu la qaban lahayn muhiimaddu weeyaan baabuurta yar baan anu la hadlayaa wixii waaweynkii ama dee waa inoo gaar laakiin baabuurta yarar inaan isgarab taagnaan loo baahan yahay baabuurta waaweyn ee tawakal intaa kadib waxaa madashaasi hadalka qaatay qaar ka mid ah madaxda dhaqanka iyo bulshada deegaanka Quljeed oo uu marayay howlgalkan lagu dayactirayo wadada isku xidha Boorama ilaa Fardaha waxaana ay tilmaameen dhibaatooyinka iyo carqaladaha ay kala kulmaan jidkani iyagoo sidoo kalena ku adkeeyay in xukuumadda Somaliland ay doorkeeda ka qaadato dadaaladan lagu dayactirayo jidkaasi muhiimka ah tawakal oo jidkan hadda wax fiican ka qabatay waxaan ugu mahad celinaynaa waxa ay ka qabatay jidkan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa jidkani maanta intii ka horeysay sidoo ahaa iyo maanta marka la isku eego wax farq weyn baa u dhaxeeya hawl weyn oo ina awood u lahayn bay shirkaddan iyo iskaashatadani ka qabatay waxaan leeyahay iskaashatadan waa in iyadana la caawiyo oo ay dawladdu caawiso oo hay'adaha madaxa bannaan li caawiyaan oo baayac mashtarka gobolka Awdal caawiyo waxaan leeyahay iskaashatadani awood ayna lahayn ayay ka qabatay jidkan degmada Quljeed mara ee gobolka Awdal hadda carratuul bay wadadii dhigayaan wadadii intay saddexaad bay ka dhigeen waxa weeyaan deegaankuna si fiican buu u soo dhaweeyay dawgan dawma ahayn wuxuu ahaa ari aroor inta ari ka soo fu ahaa macnaha hadii uu la dhigo gaariga dameerka neef ka socda ilmaha caruurta meel laga marmiheen ma sha Allah alxamdulillah ilaahay waxaan ugu mandaqaynaa kuwa noo hagaajay amooda jirba wax ku qabtaan waa ururis nool baabuur bay ka urusay iskaashatadaas halkay ku gaareen waa kuwa wadada noo sameeyay cagafta ayaga noo keenay baabuurta ayaga noo keenay aqligii wanaagsan itaalnu ka rooyay bal eego bashmirtu tiraada qabad weyn oo jirtay ayaa maanta iskaashatada tawakal ay daaha ka qaaday wadadaas oo dhibaato badan lagu qabo waa wadada ilaha dhaqaale khaasatan kolkaan ka hadlayno gobolka Awdal iyo gobolka Gabiley halka ay wax uga yimaadaan waa dalka Djibouti dhibaato badan baa wadada lagu qabaa iyo raf badan bay ahayd kulli iskaashatadaas dadaalkaygu ma yaro horeyna wadada waa u mareen haddana mar labaad face labaad bay ku soo noqdeen waxayna ka qabteen wax aad iyo aad u muhiima kulli Soomaaliduna waxay ku mahmaahdaa waxay indha arkaan beelka gooyaan kulli dadku indhoogay ku arkayaan sida ay ragaasi isku hawleen siday ma taqaanaa u dadaaleen iyo waxa ay qabteen waxay ka muuqataa wadadii kulli waxaana garan kara oo qof shalay soo maray maantana maray dadka ka soo jeeda gobolka Awdal waar meelo kale waad ka hadashaan waxyaabo ay faa'iido inoogu jirin baa inta badan laga hadlaa maanta tani waa tii faa'iidada ugu weyn gobolkeenu ugu jiray waxa loo baahan yahay in la isgarab istaago